Masar Geronimo Cardano oo aqoon weyn u lahaa xisaabta waxa uu ku dhashay dalka Talyaaniga bishii Sebtembar 24 sanadkii 1501 wuxuuna qayb weyn ka qaatay waqtigii horumarinta. Cardano waxa uu ahaa Talyaani aqoontiisu ay aad u balaaratay wuxuu aad u yaqaan xisaabta dhakhtarnimo biology physics chemistry xidigis falsafad iyo qoraalada wuxuu ka mid ah xisaabiyaashii ugu saameynta badnaa ee sabankii fuufka wuxuuna ahaa mid ka mid ah tiirarka asaasiga ah xisaabta ihtimaalka probability iyo waliba soo saarihii ugu horeeyay ee sugeynta iyo isdhafka binomial wuxuuna qorayn ka badan 200 oo ku saabsan cilmiga sayniska. Cardano wuxuu qayb ahaan curiyay dhowr aaladood oo farsamo ah oo ay ka mid ahaayeen qufulka isku rakiban gudbinta dhaqdhaqaaqa wareegga ee xaglo kala duwan waana farsamada gawaadhida oo loo adeegsado ilaa maanta waxaan ku yaguula uu ka gaaray algebra buugiisii Ars Magna uu qoray sanadkii 1545 wuxuuna sameeyay nidaamkii ugu horeeyay ee tirooyinka taban ee Yuruba. Geronimo Cardano wuxuu aad u aaminsanaa falka iyo in uu dadka wax uga sheego mustaqbalka. Maalin ayaa la weydiiyay bal in uu dadka u sheego maalinta uu dhimanayo maadaama dadka uga waramo mustaqbalka wuxuuna si fudud u yiri anigu waxaan dhimanayaa maalinta 21 Sebtembar ku aadan tahay 1576 markii la gaaray maalintaasi isagoo caafimaadkiisu aad u wanaagsan yahay oo dhintay kadib markii uu isdilay waxaana uu aaminay haddii aanu dhiman in xitaa haddii uu sii noolaado aan qof dambe wax ka rumaysan doonin sida awgeed ay tahay inuu dunida macsalaameeyo. Diinta ayaa xoojisa miisaanka caqliga aadamiga aqoon kasta iyo fikir kasta iyo nolol kasta oo aad u wanaagsan oo aad ku jirta kuma muuqanayso marka qalbiga uu ka midhan yahay caqiido iyo rumaynta Alle.